duqa degmada Burco iyo ku-xigeenkiisa ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada ayaa magaalada Burco ka dhagax dhigay mashaariic horlo ay dawladda hoose Burco ka fulinayso. mashaariicahan uu saaka gacmihiisa ku dhagax dhigay duqa degmada Burco Maxamed Muraad ayaa ahaa wada laami oo dhexmarta xaafadda Hodan Qayle ee koonfurta magaalada Burco iyo sidoo kale waxa uu dhagax dhigay gabiyan biyaha ka difaacaya dhismaha xerada gaaska ee ciidanka qaranka. goobtaas uu dhawarkeeda maro toga maayirka iyo ku-xigeenkiisa halkan ka hadlaya tilmaamay sida ay uga go'antay horumarinta magaalada iyo wax ka qabashada baahiyaha bulshada. halkan aynu joognaa waa xerada gaaska ee Burco. dayac weyn iyo dhibaato weyn way qabtaa. waxaan ku talagalay waxyaabo badan inaanu ciidankan ku tarno oo saaka gabiyankani ka mid yahay. waxaan soo dhagax dhignay saaka gabiyankii militariga aan ka sameeynay oo 330 mitir dhererkiisu ahaa ayna 150 mitir ayna ku baxaysay lacag dhan 150,000 oo dollar. kana waa mashruucii labaad ee saaka dhagax dhigayno. waa wadada Hodan xaafadda Hodan la yiraahdo. waa wada aad iyo aad u muhiim ah dad badan yahay waliba ay maraan gaadiidka yar ee bajaajka la yiraahdo. mashruucan halkan aanu ka fulinaynaa wuxuu qayb ka yahay mashaariic badan oo aan ugu talagalnay degmada Burco sanadkan intuu dhamaanayo inay ka hirgasho oo qaybaheeda kala duwan leh. xalligaaba waxaan halkan uga mahad celinaynaa sida UNDP uga soo jawaabtay baaqaygii ku aadanaa in dooxa weyn ee Burco laga sameeyay gabi weyn ama dayactir weyn. saraakiil ka tirsan ciidanka militariga ee gobolka Togdheer ayaa soo dhaweeyay dhagax dhigga gabiyankan. waxa iyaguna sidoo kale soo dhaweeyay mashaariicahan dawladda hoose qaar ka mid ah dadweynaha xaafadda Hodan Qaylo. Xabsa Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.